السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامج كفنكي سوغانتا iyo toddobaad cusub martida garabkayga taagan oo barnaamijka fankii suugaanta ee TV-ga Universal toddobaadkan martida ku ah waa Saciid Daawud Cali Masxaf Saciid ka waran dareenkaaga aad iyo aad ayuu u fiican yahay dareenkayga ma sha Allah aad baan u qanacsanahay Saciid dib dheer aan soo marnay meesha aan ku dooro inaan barnaamijka ku qabano toddobaadkan ka waran wallahi runtii aad aan uga helay maxaa yeelay inta badan barnaamijyada waxaa lagu qaban jiray meel studio ama meel la fadhiyo ama meel laakiin barnaamijkan iyo quruxdan iyo anagu hawada qaadanayna aadankaaga maad celinaya waa tahay aad u masanta sidoo kale fanka halkay ka soo gashay iyo goorta bilaawda iyo toona kuma weydiin dadku ku wada yaqaanaan in aad tahay dhalinyaro family oo fanaan ah hase yeeshee waqtiga saxda ah oo aad adiga dhalatay goormay ahayd aniga waxaan dhashay 1979 waa gartay fanka ka hor maxaa jeclaan jirtay oo aad adiga qaban jirtay runtii fanka ka hor waaba la yaraaba sidaan u malaynahay markaan is xisaabiyo laakiin anigu yaraanteed markaan iskuulka dhigin jiray xitaa fankan aad u jeclaa waa gartay waxyaabaha qaarkood ee aad u xiiseyn jirtay oo marka laga soo tago fanka oo kale maxaa ka mid ahaa sportiga sida kubadda kale aan aad u ciyaari jiray oo aan jeclaa waa gartay sportiga iyo music inaan dhageysto ama ciyaaro intaba waa gartay sportiga kooxda aad u taageertaa wallahi billahi waxaan aad u taageeraa kooxda la yiraahdo Real Madrid Spain ingiriiska oo kale Liverpool aan ka taageeraa talyaaniga oo kale Juventus aan ka taageeraa waa gartay waa kooxo badan tahay maya waa dhowr wadan waa hada waa gartay aad u mahadsantahay intaas waa kaftankii album cusub aad noogu talagashay jiro barnaamijka fankii suugaanta aad ugu talagashay toddobaadkan albumkaaga cusub bal heesta ugu horeysa aad noo doori lahayd oo barnaamijka ku furanayno toddobaadkan waxaan u doorayaa hees la yiraahdo dhismo qoys waa gartay cida meeraheedii laxankeeda samaysay heeskan dhismo qoys waxaa ereeyada iskale abwaan maxamuud maxamed Rainbow laxanka waxaa u sameeyay macallinkii marna saaxiibkii marna aabay Daawud Cali Masxaf waaw ma sha Allah musiga waxaa tumay subxaanyo oo ma sha Allah isagoo runtii nin aad iyo aad dadka hadeer wadanka markii loo fiiriyo xaaladiisa musiishanada aadka ugu firfircoon ku jiro isaga tumay heeskan oo ugu mahad celinaya hagaag heestaas ayaa daawadayaasha u saareynaa oo ah heesaha cusub ee albumka aad noogu talagashay ka mid ah waa dhismo qoys iyo Saciid Daawud Cali Masxaf ayaa idin kala dhaxbaxaya اسمها قويس كما تبكي سيدا الدول قبان وقود يفسن لها حتى ضي دحي لها اسمها قويس كما تبكي سيدا الدول قبان وقود يفسن لها Turkan kumar
kugu qaban lahaa dib walbo yimaadana dhankaygaanu badin lahaa dhabtaan kugu qaban lahaa dib walbo yimaadana dhabtaan kugu qaban lahaa dib walbo yimaadana dhankaygaanu badin lahaa dhayalmaha wadani waa iga dhabeeyogo dhayalmaha wadani waa iga dhabeeyogo dhaxalkii naftayda wada dhaqashadeena dhudhunkaba waxay tee dhaxalkii naftayda wada dhaqashadeena dhudhunkaba waxay tee adiguna dhankaagan dhidibada waaso adiguna dhankaagan dhidibada waaso yuusan dhicine ila dhowr yuusan dhicine ila dhowr adiguna dhankaagan dhidibada waaso adiguna dhankaagan dhidibada waaso yuusan dhicine ila dhowr 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 heestaasi dhismo qoys haddaan intaasi kaga imaano barnaamijkeena ayay qayb ka ahayd ee fankii sugaanta oo si toos aad uga daawanaysaan tv-ga universal sicid haddaa kuu soo laabto oo aan kula kaftamo waxaad ka mid tahay fanaaniinta howlada qaranka ee waaberi hase yeeshee waxaa aad lagugu tiriyaa inaad tahay fanaaniinta aad u labiskooda aad u qurxoon yahay labisyada aa xiratayaa kuu dooro runtii waa su-aal aad u wanaagsan waa ku mahadsan tahay labiska markii loo fiiriyo markaad fan maqasho ama fan markii la yiraahdo fan waa qurux iyo labis intaba marka anuu yaraantiida waa iska jeclaa inaan aad u labisto waa isaga soo baxay laakiin markaan fanka ku sii biiray oo aan u fiirfiirsado qaabka fanaaniinta dunida haddii lala jaan qaadayo kale ninka fanaanka labisku xiranaya waa inuu ka duwanaadaa dadka caadiga ah ma aha qofka caadiga inuu lamid ahaado waxaa la rabaa in ay ka muuqato heybadda fanka markuu soo soo istaago qofkaan sewa ee qofkaan fanaan waay okay waa inaa u qalantaa waxa markaas aad ku jirto aad iyo aad marka waa dooqayga aad baan u jecelahay marka nin qurux badan haddaa aragtana aan kula kaftame xaaskiisaa ka dambaysa hadda waxaa leedahay xaaskayga ka dambaysa aad u mahadsantahay cidda awoodda le masxab waxaa taa dhal fanaan qofka fanaan ahna dabcan waxyaabo badan caqabado la kulmaa intaad fanka ku jirtay maxaa caqabado aad la kulanto oo aad noo sheegi kartaa wallaahi horta fankan waa iska fan soomaaliyeed oo soomaaliyana waa garan kartaa waxaan soo marnay marxalada aad iyo aad u adag oo aan dareemi kara ilaa hadda inaan ku dhex jirno weliba laakiin subay dhaantaa oo maanta sidii hore waa dhaannaa magaaladan waxyaabo fara badanaa soo maray marka adoo fanaan oo magaalada fanaan wuxuu ku fiican yahay meel nabada oo qurux badan oo laga faraxsan yahay meel dagaal kuma fiicna marka waddanka intaas marxalad soo maray adna aad rabto inaad fan ku dhex joogto waa fahmi kartaa waxa kaa soo gaari kara anoo aad u farmuuqaynin laakiin haddii aan ka nabad qabo alxamdulilah wax problema ka sheegaan ku jira
siciid waxaa taa qof aabba ah marka fanka laga soo tago ma jiraan caruurtaada kugu dayda fanka qaabka heesaa u qaado kale ama waxyaabo kala duwan haddii ahaan lahay ma jiraan qof ka mid ah caruurtaada kugu dayda caruurtayda horta waa yaryar yihiin haye oo anaaba iska yar mogtahay raggu da'dooda horta maba sheegaana laleeyahay aad u qarsadaale marka caruurtayda waa yar yihiin weli ma gaarin haye in macnaha hadda fan iyo waxaas isaga daydaan laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa abeese ilmo yar ma dhasho haye ma fahantay laasiman wax waa ku jiraan oo kugu dayda fanka marka la waan ku soo dhawaynaynaa weliba waa yaryar yihiin laakiin hore adaa lagugu soo dhaweey haddana waxaa leedahay caruurta ku soo iyagana waa soo dhow maxay qabanayaan waay aabbooda dufanaan awowgooda dufanaan ahaa aabbahood fanaan noqday iyaga da meel kale loo diri maayo waa garta weli dhinaci kaftanka ayaan ku guda jirnaa imase xaasaa jecesha inaad guursatid su-aal yaraa ku weydinaa hani horta ninka ragga wuxuu ilaahay u banay 4 inuu guursado diinta u banaysay waa sharciga diinta islaamka uu ilaahay u dhigay ninka ragga ilaa 4 inuu guursado aad iyo aad xikmadana ku jirta wuxuu ilaahay u sameeyay sidaasna waa qofkii muslimnimada ay ku jirtaa garan kara ha laakiin dumarkiyow ilaa hadda maba ogola iyaga haye adaa marka hadda kaa soo qaada lacala haye macnaha nin 3 naag qaba in lagugu afaray waa iska ogolaan kartaa baashaas waa farahay ka baxda mogtahay nin hal naag qaba in lagugu labay ma ogolaanay adi والله horta dooqayga sidaa ma aha ma aha soo maaha waa ka marka dooqaaga camal la ii qiyaas anne lama naag nin xamili kara xamar hadda ma joogo xaalkiisa ilaaha waxa u fahminaa hal jacayl inaad saasi ku fiican tahay aad u maasta wali heesi ayaan dhex maquurinaynaa inkastoo aan jecelnahay su'aalihii yareeyo hase yeeshee albumkan cusub ayaan rabnaynaa oo ka wada qaadna heesaha ku jira heesta saddexaad ee barnaamijka aan rabno in daawadayaasha xilligan oo kale maadaama jawi degan uu yahay halkan jawigeed aad u qurux badan yahay qariyo wadanka aad cabayso hees aad u macaan oo jacayl ah balna soo qabo waxaan soo qabanayaa hees la yiraahdo ambad ama ubad awliyaad ubad hee ubad awliyaad waaw waxaan sameeyay abwaan cabdi faarax nuur cabdi gareen laxanku waa adeerkay marna saaxiibkay wada noole oo isagu Nairobi jooga music waxaa ka raacay subxaanya waa gartay oo ay ola baxeen fanaaniinta dhalinta reer Muqdisho nooleeyaha fanka runtii aad ayuu dadku u caawiyaa fanaaniinta hadda soo baxaysa hadii ahaan lahayn kuwi kale aad u caawiyaa musashinkaas weey isaga ka raacay musicana waa gartay heestaasi jacaylka oo runtii as leenahay jawigan aad ku quruxda badan way ku wanaagsan tahay ayaan daawadayaal markana jecelnahay nala daawataan adiga kale waay
hagaag wali barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa qaybihii kaftanka ayaan dib ugu soo laabanaynaa siciido haddii maanta xil dawlad lagu dhiibi lahaa dadweynaha maxaad jeclaan lahayd inaad u samayso waa isleedaha baahidaas ayaa waddanka ka jirta macnaha hadda waddanka hosaana mas markuu waddanka nabad noqdo xilligan la taagan yahay hadda ma hadda wax ma qaban lahayn waddankaani xilna ma qaban lahayn xilna uma qaban lahayn dadka dhibaatada intaas la eg hayso xilkooda ninka qaadaya nin oo wax badan dusha ka fuuli doonaan way marka anuu maba jeclaysan weligay wax xil yiraahdo inaan qabto waxa la xilka haya gurigeyga bas ilmaha iyo islaanta
waa garta haddii lagu dhihi lahaa fikra lagaaga baahan yahay talo maxaa dadweynaha fari lahayd dadkan waxaan dhihi lahaa dadku waxay ku noolaadaan nabad aad iyo aad qofka bini aadanka hadduu nabad haysto haa waxa kale wuu heli karaa haa ma fahanta waa nabadda iyo caafimaadka waxa ugu horeeya qof bini aadanka ku noolaan karo nabaddana waxay ila tahay waxay aaminsan yihiin dawladda nabad samaysa ama dad baa nabad sameeya nabadda iyo waddanka waxaa toosista waa shacabka meel dhisan ama waddan dhisan hadda aragta shacabkiisaa dhistay aad iyo aad marka shacabka un baan dhihi lahaa intaad tooba tiraahdaan waddankiina dhista oo isku toosa xilliyada fursadda aad leedahay oo kale maxaa qabataa ficil xilliyada aan fursadda leeyahay waxaa aad u dhegaystaa miisiga heesaha qalaad macnaa heesaha westernka iyo heesahaasaa aad u dhegaystaa iyo kubadaan daawadaa heesaha soomaaliga iyagu waa darsadaa ilaan anaa ku dhex jira mogtahay aad iyo aad marka fanaaniintii markaas ama heesihii aan xiisaynaya markaas waan dhegaystaa waa gartay dhalinyaro aad u badanaa soo ifbaxay hadda fanka ku soo biiray iyaguna maxaad dhihi lahayd maadaama aad ka mid tahay fanaaniinta howlada waa beri aad ka mid tahay waxaan dhihi lahaa horta fanaan haddii aad marba fan noqoto ama aad fan noqonayso oo aad rabto inaad fanka ku soo biirto ama aad ku soo biirto waa yar tahay ilaan waa barbaaraysaa mogtahay marka hore waxaa looga baahan yahay ixtiraam iyo edab waxaa waaye fanka dad badanaa waxay ka aaminsan yihiin fanka inuu inta badan xoogaa uu carqaladaysan yahay ama uu xun yahay anugu taas kulley ma qabo waxaan ka soo qaadi karaa dadka anigoo kale anugu dadka ma xumeeyo mana dhibaateeyo mana jecla dad in la dhibaateeyo marka waxaan leeyahay fanaaniinta soo baxday ee fanaaniinta idinka horreysay idinka waaweyneed sida annaga macnaha kuwii naga waaweynaa aan u ixtiraamno adikana u ixtiraama inay iyagana u ixtiraamaan ku soo dhowaadaan fanki waa fan soomaaliyeed oo waa ballaaran yahay uuna deeqaa ya waxaan leeyahay soo dhowaada ku soo barbaara annagaa u joogna inaan booska u bannaynaan diyaaraan u nahay waa garta qaybihii dambe barnaamijka ayaan kusii siqeynaa iyadoo heesta ugu dambeysa daawadayaashaan u saari doono fursadaada ugu dambeysay maxaa dadka dhihi lahayd wallaahi dad wax dhihiis horta ani dad wax dhihiis waa ogtahay waa soo daali waa ka soo heesay waa ka soo gabigay waa si walba aan soo niray wax walba waa soo sheegnay ummaddaan ilaahay ha toosiyo ilaahay ha isu toosiyo annaga hawsheen aan ka wadanaynaa waxaa waaye siduu ilaahay ugu talagalay noqonaysaa ilaahay dhibka ha naga dulqaado laakiin waa gartee intaasaan ilaahay ka baryaa inuu dhibka naga dulqaado si aan macnaha u nafisno ama ubadkeen u noolaado iyadoo barnaamijka qaybihii ugu dambeeya aan sii marayno heesta ugu dambeysay iyadana magaceeda heeska ugu dambeeyo waxaan ka dhigayaa hees la yidhaahdo maxogta maxog ma taqaanaa maxogta waxaa u maleynaa baasha la cuno maxogta la cuno xamaraa lagu beeraa dhulka xamar sukadiisa iyo meelahaasay ka baxdaa maxog iyo waanba maqli jirtay waayahay heeskan waxaa la yidhaahdaa maxog ama maryan magaca dumarka dee noo dhaaf magaca dumarka wanaagsan heeska waxaa loo sameeyey marwo maryan doctor cabdulaahi yuusuf oo elfis ku magac dheer elfis aad iyo aad waa la garanayaa oo aabbahayna ay aad saaxiibo u yihiin runtii heeskani da' fara badanuu jiraa laakiin hadda in la soo cusboonaysiiyo markii la qaadaa dhigay kadib waxaan isla garannay doctoorkii heeska soo codsaday iyo aabbo oo isagu laxankii iyo muusiga marka hore u sameeyey inaan haddeer heeskii dib u cusboonaysiino aan dib u noolayno waa gartay oo mar labaad maryan sharaf la yidhaahdo waan kuu soo hadiyadeynay waa gartay heeska maryanaa la yidhaahdaa maryama waa ereyadii abwaan bashiir cali amiir laxankii saaxiibkay daa'uud cali masxaf miisiga waxaa tumay cd cali winkey oo ah nin cajiib ah oo ani hortayna aabbahay uu ku tilmaamay inuu yahay nin cajiib ah waa nin cajiib ah cd cali winkey waa libaaxa muusiishanada soomaaliyeed cd cali winkey ayaa tumay isagaa nagu garabsiiyey aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa isaguna ustaad cd cali winkey heeskan isagaa tumay
waxaan kaloo uga mahad celinayaa injineer maxamed wardi oo isaguna dhanka codqabashada iyo si fiican saaxiibkayna ah isagana waan u mahad celinayaa abwaan bashiir oo mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa abwaanadii heesaha sameeyey gabi ahaantood la xamiistayaasha waxay ila tahay hal wada noolamaya laxmadii oo dhan aad baa qaatay waa ku qasbanahay mar hadda aniga siciidaad meesha soo fariistay markii la qaybiyo fankayga ama la qiimeeyo wuxuu ka bilowdaa aabbahay daawud cali masxaf wuxuu ku dhammaadaa aabbahay marka saddex meel markii loo dhigo haddaan meel fanka ka qayb galayo waa qasab in fanka dhankiisa aabbahay uu u bataa ma fahantay isagana aad ugu mahad celinaya waa mahadsanaya maadaama aqoontiisii ama wixii isaga uu taray maanta aan wax ku qabsanayo waa mahadsantahay waa mahad celinaya anagana waa salaameena aabo adigana aad u mahadsantahay sida wanaagsan aad nooga ajiibtay kasoo qaybgalka barnaamijkan fankii sugaanta ee TV-ga Universal daawadayaal intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa toddobaadkan barnaamijka fankii sugaanta oo si toos ah kaga imaanay xarunta Beach House kamid ah xarumaha dalxiiska ee ku yaala magaalada Muqdisho maamulka iyo sidoo kale waxa sidoo kale u mahad celinayaa inamada farsamada gacan ka geystay dawista ay ahaan lahaayeen ugu horeeyay Qaalid Maka Xaaji Banaadir maxamuud mukhtaar cabdulla koofi iyo sidoo kale maqosle iyo isku dawridka barnaamijkan oo aad iyo aad aan ugu mahad celinayo Cabdixamiid Karasaay anigu waxaan xaaji maxamed ayaa barnaamijka halkan idin kala socodsiinaysa is arag dambe nabadgelyo ma ogtahay waxa tahay miduu mawlay qoray marlii kalena laabta uma furo adiga mooyaane intuu dhiiga maxdiyo ugu meerisada beerka haddii aanad ku murtiba kuma mariyeen miirliinaan ku jeclahay murun la weyaani aadunbaa wadnaha suran maaliniya layle aadunbaa wadnaha suran maaliniya layle wamaryama صبحدي مرياني سميدو دمو قالي بطي قبطي ملعدي مارين ويرهيو أصل مدبكي أصل مدبكي شيء صبحدي مرياني سميدو دمو قالي عينتي
استخرجو شيدنا الميل يعصيقا كردح نوض كذا مضحى قدك وبحبو مقولو ميرودين عسالو معاني ودنالو نفط مهاتو يشي مضحى قدك وبحبو مقولو ميرودين عسالو معني ودنالو نفط مهاتو يشي